السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan dhammaantiinba dawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudano halkani waa Somali Freedom aniguna waa Idris ku soo dhawaada muuqaal cusub wali waxa halka kan inooga sii socda taxanaha sheekooyinka warbixinada iyo sidoo kale dabcan xogaha nolosha caalamka iyo bulshooyinka dunida dabcan ku saabsan oo maalinba aanu dal iyo dad iyo sidoo kale dabcan xigmada gaar ah aanu ku soo qaadano baahintooda si bal waxooga cashiro iyo duruus nololeed aan uga dhaxalno maanta mawduuceena waxa uu ku saabsan yahay sirta guusha Japan duba markaad maqashaan ciwaanka kan weydiimo badan oo maangal ah ayaa ku soo dhacaya qalbigiina ama maskaxdiina kuwaas oo u baahan inaad u heshaan jawaabo waafi ah halka kan ayaadna uga bogan doontaan haddii eeba uu raali ka noqdo ee ku soo dhawaada muuqaalka kan marka aad maqasho dalka Japan durba sida muuqata waxaa ku sawirma duni ku horumartay tiknoolajiyada casriga ah ee maanta iyo dal ka mid ah kuwa ugu tunka weyn dhaqaalaha adduunka taasi oo aan ahayn wax la iska yiraahdo balse xaqiiq muuqata ah taasina ma ahan mid kugu cusub waayo ereyga Japan waxaad maqli jirtay tan iyo yaraannimada halhayska ugu badan wuxuu ahaa wallahi nooc min al-Japan tahay oo loola jeedo waxaad leedahay sifo kamid ah sifooyinka indha yarta taasoo muujinaysa dad hal abuur iyo curin iyo halbeeg nololeed ku caan baxay inaad sifayooshooda ama dacan hal abuurkooda ama dhaqamadooda aad leedahay markii aan soo garaasatayna waxaad maqashay ama aragtay agabyo badan oo hareerahaada yaala oo lagu leeyahay waxaa laga keenay dalka Japan laga bilaabo shayga ugu yar ee gacanta aad ku hayso sida remote-ka dhalada gurigiina taala iyo badi gaadiidka aad ku socdaasho sida Nissan Toyota iyo wixii soo raaca ayaad ba sheegi kartaa waana taas sababta Japan ay kaaga socneed kuwa kale xaqiiq ahaan hayeeshee guusha caadiyaalka ku ah oo aad u qiraysa in dalkani uu gaari kuma dhalan sida aad iska dhaadhicin karto oo ah inay kaliya xooga saareen wax soo saarka dibadda si ay dunida ugu tiirsanaato taas waxaa la oran karaa waa talaabtii ugu dambeysay oo ay horey u qaadeen waxaana dabcan shalay iyo maantaba mudnaanta koobaad leh talaabooyin guudeed dhexdooda ka soo hoyay guulo muuqda ka hor inta aysan guusha weyn ee dibadda taala hantirin sida ka muuqata mararka qaar waxaa la yiraahdaa dabcan muuqaalka kore laaba laguma qiimeeyo humaag dabcan gudeedka qof laabtiisa ee dabcan ee ku laba gadoomaya waayo waxay kala dirayaan fariimo isdiida balse marka aynu qaadano murtida tiraahda weel walba wuxuu dhididaa inta qaadkiisu la egyahay waxaan ka marakici doonaa in guulaha muuqda oo dalalka horumaray ay gaareen laga qiyaas qaato sida uu ku egyahay dabcan waaqicideeda gudaha bal waxaa jira isweydiin haddaba maxay tahay sirta qarsoon ee guusha Japan waxaynu ka soo qaadan doonaa dhowr nooc oo kala duwan waxaan ka sheegi karnaa waqtiga ixtiraamka amaanada shaqaalaha nadaafadda dabcan qashinka iyo bulshada wax akhriska baahiyaha gaarka iyo qaar kale badan intaas ayaa ah wax ugu muhiimsan ee kay dhigay sida muuqata haddaan u nimaadno su'aashan had iyo jeer dunida kale ee Japan la tartama waxay u raadin jireen jawaabtii ku habooneed inkasta oo la og yahay in sirta sancada mashiinka ay reer galbeedka dabcan kala yimaadeen haddana waxaa isweydiin mudnayd sida dalkan dhaca Aasiyada shishe uu xawli uga tagay dunida kale taasoo keensatay inay ugu yeeraan mid ka mid ah toddobada meerayaal ee qoraxda ku wareegta waayo horumarkiisa wuxuu ku fiicnaaday dunida galbeedka waxayna u tixgeliyeen halhayska dabcan meeraha Japan waana wax muuqda sida dabcan aad ka dhadhansan kartaan xaqiiqooyinka yaala oo Japan iyo waxtarkeeda ku saabsan Japan iyo nolosheeda ku saabsan Japan iyo hal abuurkeeda tilmaamaya si kastaba ra'iisul wasaarihii Japan ayaa mar la weydiiyay sirtooda wuxuu ku soo koobay 3 sifood cilmi amal iyo akhlaaq malaha adiguba arintaas waa isweydiinaysa sida ka muuqata xogta tan dabcan siinta ahmiyadda ee weyn aqoonta iyo hawlgalka ama waxqabadka waa mid dunida horumartay ku hogaamisay heerka ay maanta joogaan taasina waa cilmi iyo camal hase yeeshee dheeraadka dadka Japan u raacsan waa akhlaaqda ama dhaqanka suuban sida xogta sooyaalka waranka dalkaasi uu warinayo loolanka dunida ku wada jirta waxaa kaliya ku guuleystay mid ka wax dheeri ah oo kuwa kale aan mudnaan weyn ugu fadhin
dabcan noloshiisa qayb mugle ka siiya waana Japan tan dheeraadkaas dunida kale ku dhaaftay dhaqanka suuban alaaba waa mid ka soo fulan niyada fiican waana xitaa mid eebbe ku sifeeyay adoonkiisa Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sida muuqatase markii suubanaha uu ahamiyadeeda ka hadli jirayna wuxuu dhihi jiray aniga waxaa la ii soo diray dhamaystirka akhlaaqda fiican taasoo ah fariin quman oo muujinaysa akhlaaqdu siday nolosha u jaangoyso siday mujtamaca u bedesho sida ay beecada xitaa door weyn oo saliima uga ciyaarto uma socdo inaan kuu soo gudbiyo akhlaaq qariib ah oo Japan ay dunida ku soo beerisay kamana dhaadhicinaya inay yihiin kuwa loo dhalay xaggeeda waxaan kaliya kuu sheegi doonaa in haddii in yar aan akhlaaqda suuban isaga tagno sida Japan isugu taagtay hirgelinteeda aan noqon karno ummad dib u hogaamin karta qeyrkeeda maanta ku wiirsanaya si kastaba aan mid kuugu kala dhigo dabcan akhlaaqiyaadka suuban ee laga bartay dadka ku nool dalka lagu naanaysto dhulka cadceedu ka soo kahdo kow waqtiga ayaa ka mid ah laba ixtiraamka ayaa dabcan ku jira saddex waa amaanada afar waa shaqaalaha nadaafadda shan waa qashinka iyo bulshada lix waa wax akhriska toddoba waa baahiyaha gaarka oo inta badan loo asteeyay inay dunida kale uga duwan yihiin sida ka muuqata xogta iyo sooyaalka laga qoray arrinta tan haddaanu eegno dadka Japan waqtiga uma sheegaan inuu muhiim u yahay waxay ku yiraahdaan waa aniga midka kugu go'aansanaya muuqaalka aan rabo inaan bulshada ku dhex yeesho adigu kolley iyo kolley ma ogaanaysid aniguna kuuma hakanayo daqiiqad walba waa mid u xisaabsan sida ka muuqata reer Japan ixtiraamka waxa la yaab kale waa in dadka Japan lagu sifeeyay ummad huwan qadarin dabiici ah waxay caad ahaan madaxa u raariciyaan ama u rukuucaan qof walba oo muwaadin iyo shisheeye oo dalkooda jooga taasoo si kala muujinaysa ixtiraamka jira amaanada haddii aan ku iraahdo tuugo wax dhacda lagama yaqaan gudaha Japan fadlan ha isaluugin ummad walba waa sida loo layliyo naf ahaan iyo sida loo soo ababiyo markay dabcan abaydinka yihiin bilowga hore ee dugsiga ilmaha la keenayo waxyaabaha ugu weyn ee kobciya waxaa ka mid ah ilaalinta ballanta iyo amaanada sida ka muuqata reer Japan arrinta kale dabcan waxa weeyaan sida ka muuqata qodobka afraad waa shaqaalaha nadaafadda tani waxaan u dhigay gaar waayo waxaan ogahay siday xasaasi u tahay marka la joogo Afrika sideedaba dal bilic leh iyo dad caafimaad qaba waxaa dhalin kara dabcan dunida isku dhaafto sida ka muuqata waxaa dhalin kara aan ku laabto halkaasi shaqaalaha nadaafadda tani waxaan u dhigay gaar waayo waxaan ogahay siday xasaasi u tahay marka la joogo Afrika sideedaba dal bilic leh iyo sidoo kale dabcan dad caafimaad qaba waxaa dhali kara hawl adag oo ay hagar la'aan ku qabtaan nadaafadleyda heerka deegaan quruxsanaan ee dabcan dunida isku dhaafto waxaa markasta laga fiiro qaataa heerka ixtiraam iyo qadarin ee la siiyo shaqada iyo shaqaalaha nadaafadda dhinaca qashinka iyo sidoo kale dabcan bulshada waxa sida gaarka ii xiiso geliyay intii aan sheekooyinkeeda dabcan sireed raadinayay waa kelmad cajiib leh oo ay ku yiraahdeen Japanese dabcan garbe sida ka muuqata Japanesku inta badan arrinta tan ma dhayalsado oo waxa uu rumaysan yahay xaqiiqdeeda iyo waxtarkeeda waana midda markasta uu rumaysan yahay taasoo ah dabcan Japanese garbage doesn't smell oo muujinaysa dabcan arrinta aan haatan ka qeexayno qashinka iyo sidoo kale dabcan bulshada wax akhriska siinta ahmiyadda cilmiga u baahan yahay waxaa ku tilmaamada akhriska badan akhrisku waa talaab ay ummaduhu isku dhaafeen Japan waa halka laga qadariyo jahligu boos kuma lahan dhexdeeda sida ka muuqata reer Japan sidoo kale dabcan lambarka 7 isaguna waa baahiyaha gaarka ummad walba oo meel ku wada nool waxay wada qabaan baahi waxaase ku kala duwan yihiin noocyada baahida haysa dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee lixaadkoodu wax ka dhiman yihiin Japan waa dalkii ugu horeeyay ee sameeyay hindise ah dabcan inay iskood isugu filnaadaan qofka araga la wuxuu min guriga ilaa goobta shaqo ama waxbarasho dabcan ee u daneystaa kaalmo la'aan waxaana loo sameeyay dabcan jidadka u gaar ah oo ay maraan tan iyo sanadkii 1974 malahadoodii kama jirto inay dabcan waxyaabaha gaarka u tahay ay kamid tahay baahiyaha gaarka wax akhriska qashinka iyo bulshada shaqaalaha nadaafadda amaanada ixtiraamka iyo waqtiga
waana arinta guud ee sirta guusha Japan lagu macneeyo sida ka muuqato xogta tan balse haddii aan sideeda oo kale u dhaqan galino yeermada alle iyo dabcan nabigiisa Muhammad waxaa shaki uusan ku jirin in guusha aynu ka soo hoyno akhlaaqda suuban oo aan iskula dhaqanno ay dabcan bilow u noqon doonto guul lama filaan ah oo inaan dunida kale kaga yaabsano muddo kooban gudaheed marka ayaynan fiirinin wax soo saarka Japan ee aan isku dayno inaan wax ka baranno sirta nololeed ee bulshada reer Japan warbixinteennii gaarka ama muuqaalkeennii guud halka kan ayaan kusoo gabagabaynayaa maqaalka kan waxaan uga mahad celinaynaa dabcan qoraaga Sakariye Xasan Maxamed Hiraal oo ku dabcan farayareystay inuu wax weyn ka qoro sirta guusha Japan iyo bulshooyinka kale dunida waxay ugu dawan yihiin anigoo Cidruus ayaa idin waramayay Fuaad ayaa dhanka kaamirada iga caawinayay waa Fuaad Cabdisaaq Guray intaan dib hawada ugu kulmayno dhamaanteedo midaysan nabadgelyo